ku soo dhawow qaybtii labaad ee taariikhda Nokia soo bixitaankeedii iyo dhicitaankeedii. qaybtii hore waxaynu ku soo qaadanay sidii Nokia ku bilaabantay iyo sida ay isugu bedeshay shirkad isgaarsiineed. maanta muuqaalkan qaybta labaad waxaynu ku eegaynaa sidii ay ku noqotay shirkad caalami ah iyo hal abuuradii ay soo kordhiyeen oo qaarkood ilaa maanta sii jira. aynu gudagalno muuqaalkeena. sanadihii sagaashameeyadii waxay ahaayeen waqti aad ugu khaas ah ganacsiga moobilada, sababtoo ah markii ugu horeysay taariikhda dadku waxay awoodeen in ay si toos ah u xidhiidhaan. tanna waxaa inta badan loo tiirin karaa moobiladii ay soo saartay shirkadda Nokia ee ahaa kuwa aan noocooda hore loo arag ayna adag tahay in ay burburaan. xilligan waxa uu ahaa markii Nokia shaqaalaheedu ahaayeen kuwa ugu horeeya fikrad ururinta iyo hal abuurka. sanadkii 1992 Nokia waxay soo saartay moobilkii ugu horeeyay ee abid ku shaqeeya habka GSM-ka ee ilaa hadda la adeegsado. moobilkan ay ku magacaabeen Nokia 10. haddii aad isweydiisay GSM waa maxay, GSM waxaa loo soo gaabiyey Global System of Mobile Communications oo macnaheedu noqonayo isgaarsiinta moobilada ee caalamiga ah. moobilka Nokia 10 GSM-ka uu adeegsanaya waxa uu ahaa 2G, isagoo meesha ka saaray habkii hore loo adeegsan jiray ee analog 1G. hal abuurkan kadib Nokia waxay bilowday in ay tallaabada ka dambaysa ay kor u sii qaado. waxay markii xigtay diiradda saareen sidii ay u caddayn lahaayeen in moobilku uu ka badan yahay keliya aalad wax gudbisa oo la iskula hadlo. waxay rumaysnaayeen in mustaqbalku ku jiro adeegsiga software-ka, kaasoo ka dhigi kara moobilka mid ay fududahay gacan ku qaadashadiisu, sidoo kalena qofka sita la macaamili karo. hadafkan waxay ku xaqiijiyeen moobilkii Nokia 2110 ee ay soo saareen sanadkii 1994. arrintan ayaa markaasi ahayd mid aan hore loo maqal, sababtoo ah moobiladii waagaas suuqa laga heli karayay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo xajmigoodu weyn yahay, weliba baatariyadooduna waa weyn yihiin. waxay sidoo kale lahaayeen shaashado aad u yaryar oo ay adkeedba waxa ku qoran in la akhriyo. markii moobilkan Nokia 2110 soo baxay, dadka oo dhan ayaa la dhacay. waxa uu lahaa meel aad ka eegi kartid dadkii aad iswacdeen iyo kuwa ku soo misidhkoolay. waxa uu lahaa keyboard dusha ay kaga qoran yihiin xuruufta Ingiliishku. waxa uu sidoo kale ahaa moobilkii ugu horeeyay ee awood u siiya dadka adeegsanaya diridda iyo helidda fariimaha ama mesajyada. sidoo kale Nokia 2110 waxa uu ahaa moobilkii ugu horeeyay ee lahaa muusiga Nokia ay ilaa hadda caanka ku tahay. moobilkan waxa uu noqday mid aad iyo aad u guulaysta. halkani haddaba Nokia kuma istaagin, balse waxay u ahayd bilow. sanadkii 1996 waxay soo saareen moobil cusub oo ay ugu magac dareen Nokia 9000. inkastoo moobilkani lahaa astaamo badan oo aan hore loo arag, sida isticmaalidda nooca keyboard ee hadda la adeegsado loona soo gaabiyo QWERTY, haddaba waxa uu lahaa hal cillad, kaasoo ahaa inuu ekaa mid xilligiisii ka soo horumaray. sidoo kale waxaa iibkiisa hoos u dhigay qiimihiisa oo ahaa $800. tani hase ahaatee wax dib u dhaca kuma keenin, oo waxayba sanadkii xigay ee 1997 soo saareen moobil taariikhda galay. waa Nokia 6110 oo ahaa kii ugu horeeyay ee lagu soo daro geemkii yaraantii la wada jeclaa ee Snake ama Maska. sidoo kale waxay horumariyeen user interface-ka amaba isfahanka moobilka iyo qofka adeegsanaya. sanadkii 1998 markii la soo gaaray, Nokia waxay noqotay shirkadda kaalinta koowaad kaga jirta soo saaridda moobilada. booskan ayay ka riixatay shirkaddii kale ee xilligaas calanwaleynaysay ee Motorola. isla sanadkaasi 98 gudihiisa waxaa dhacay isbeddel weyn oo Nokia mustaqbalkeedii go'aamiyey. isbeddelkani waxa uu ahaa soo bixidda operating system-ka. sidaynu hore u soo sheegnay, Nokia waxay xoogga saaraysay dhanka adeegsiga software-ka. sidaa awgeed waxay shirkaddu adeegsatay software loo yaqaanay Symbian. inkasta oo Nokia aad u adeegsatay software-ka Symbian, haddana ma aanay ahayn kuwii hal abuuray. Symbian laftiisu waxa uu ka soo horumaray amabase ka yimi software kale oo la odhan jiray Epoch oo sannadihii 80aadkii la sameeyey. Symbian waxaa horumarintiisa iska kaashaday 3 shirkadood oo kala ah Ericsson, Motorola iyo Nokia. Symbian software-kan lagu magacaabo inkastoo markii dambe yeeshay noocyo badan oo ay kala adeegsadaan moobil sameeyayaasha kala duwani, haddana xilligaasi waxa uu ahaa mid aad u horumarsan. balse sidaynu qaybta dambe ku arki doono, Symbian waxa uu noqon doonaa qodax
dhuunta kaga taagan Nokia. Aynu u soo laabanno mawduuceenan maanta ee ah horumarkii Nokia samaysay. Markii la soo gaaray 1999kii Nokia waxay gashay xilligeedii ugu fiicnaa waxaana ay soo saareen moobilkoodii Nokia 3210 kaas oo aad u guuleystay. Moobilkan dhab ahaantii waxa uu ahaa mid ay aad u fududahay in la adeegsado. Waxa uu soo kordhiyey in aad qof kale message ahaan ugu diri kartid sawirro hore loo sii diyaariyey sida hambalyo dhalasho ama happy birthday. Moobilkan sidoo kale waxa uu ahaa mid qiimo jaban taasi oo macnaheedu ka dhignaa in dadkii qaangaadhka xilligaas ahaa ee xagga tiknoolajiyada xiiseynayay ay awood u yeeshaan iibsigiisa. Xilligaas moobilka waxay carruurtu u arki jirtay aalad ay aabbaha iyo hooyadu kula hadlaan dadka. Waxa uu ahaa Nokia 3210 moobilkii ka dhigay tiknoolajiyada mid la xiiseeyo sidoo kalena si fiican loogu wada xidhiidhi karo. Nokia waxay markan gaadhay suuq caalami ah oo kasta oo macquul ahaa. Bilowgii qarniga cusub waxay soo saareen moobilba moobilka uu ka fiicnaa kana iibka badnaa. Waxaa ka mid ah moobiladaasi Nokia 5110 ee soo baxay 2000 iyo Nokia 1100 ee soo baxay 2003 kaasi oo noqday mid ka mid ah moobilada loogu iibsiga badan yahay ilaa maantadan aynu joogno. Sanadkii 2002 ayaase si gaar ah ugu sii wanaagsanaa shirkadda Nokia. Waxay soo saareen moobilkii Nokia 6650 oo ahaa moobilkii abid u horreeyay ee isticmaala adeegga 3G. Sidoo kale waxay sanadkan 2002 soo saareen moobilkii ugu horreeyay ee kaamara leh kaasi oo magaciisu ahaa Nokia 7650. Laga bilaabo sanadkii 2003 Nokia waxay bilowday in ay tijaabiso naqshado kala duwan sida halkani ka cadaan doonta tijaabin iyo silsilada guuleed meel ma wada galaan. Halkanina waxay ahayd meeshii Nokia ku samaysay khaladkeedii ugu horreeyay. Sanadkii 2003 guud ahaan ciyaarada geemisku aad ayay hawada u marayeen. PS2 iyo Xbox ayaa ku jiray xilligoodii ugu fiicnaa. Nokia waxay iyaguna go'aansadeen inay galaan ganacsigan cusub. Waxa ay sameeyeen moobil cusub oo ay u sameeyeen shaashadii hore ka yaro horumarsan lehna keyboard jihooyin leh. Moobilkan cusub ay ku magacaabeen Engage. Moobilkan oo ay ugu talagaleen inuu u shaqeeyo qaab moobil iyo qalab game lagu ciyaaro ayaan guulaysan. Sawirkan ku muuqda markaad eegtid kugu adkaan mayso fahanka sababtu uu guuldaraystay. Hase yeeshee shirkaddu inkasta aanay ku guulaysan moobilkan waxaa la odhan karaa jihada saxda ah ayay ku taagneed oo mustaqbalka ayay ka fikirisay. Dhanka kale shirkadda Motorola ayaa iyadu sanadkaasi soo saartay moobil cusub oo noqday mid caalami ahaan guulaysta. Halkanayse ahayd meesha sartu ka quruntay. In badan oo ka mid ah maalgashadayaashii Nokia ayaa dhaleeceyn u soo jeediyey shirkadda. Waxay ku doodeen in halkii iyagu kharash badan geliyeen soo saaridda moobil casri ah ay shirkadihii xifaltanku kala dhexeeyey ay soo saareen dadkuna ka gateen moobiladii hore ee iska liitay sidaasna ay faa'iido ku sameeyeen. Tan ka soo kow Nokia waxay 2005 noqotay shirkadda hogaaminaysa dhanka kaamaradaha dhijitaalka ah taasoo ka sii dhigtay mid sidii hore ka sii caansan. Tani ma aanay ahayn mid ku filan raaligelinta maalgashadayaasha shirkadda. Sidaas darteed waxaa shirkadda la wareegay maamul cusub oo hormuud u ahaa Oli Becker kaasi oo u jeestay ka leexashada aragtidii horumarineed ee Master Elia. Waxa uu shirkadda ku jiheeyey soo saaridda moobiladii looga bartay ee aan ahayn kuwo horumarsan. Sanadkii 2006 maamulka shirkadda ee cusubi waxa uu hal mid ka dhigay inuu isku daray smartphone-kii shirkaddu soo saari jirtay iyo kii basiga ahaa. Tan ayaa ka dhignayd halkii shirkaddu hal abuur iyo horumar la imaan lahayd in ay dib u socotay xooggana saartay nooca moobiladii hore ee soo jireenka ahaa. Isbeddelka maamul ee ku dhacay shirkadda ayaa lagu tilmaami karaa inuu ahaa bilowgii dhammaadka Nokia. Qaybta xigta ee ugu dambaysa taxanaheena waxaynu ku eegi doonaa xogta ay ka sheegeen shaqaalihii shirkaddu xilligii ay hoos u dhacday. Waxaa yaab kugu noqon doonta in aad ogaatid dhicitaanka Nokia inuu ka yimid isla gudaha shirkadda. Shirkadda waxaa hadhayn doona isqabqabsi gudaha ah kaasoo ka dhigay mid aad u gaabiya ka falcelintooda soo bixitaanka iPhone iyo Android. Dhab ahaantii aad ayay xiiso u leedahay inaad ogaatid waxa ka dhacay shirkadda gudaheeda. Si kastaba ha ahaatee qaybtan labaad intan ayay ku eeg tahay. Aad iyo aad ayaa ugu mahadsan tahay waqtiga aad gelisay daawashada muuqaalkan. Ha ilaawin inaad ka tagtid faallo suulka kor u jeedana saar muuqaalka sidoo kalena aad nagu soo biirtid oo subscribe saartid kanaalkan.